السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيتي صاحبة إيمي في عنتين إن محل قصة إن مانتا وحكوا سابسنتهاي عرور إكو سابسنتهاي عرور تلحظة إدبات سو قرتو سومالي هذا ودن كينا ويكو صوبضتي دوري طبعا كان سنة دنبي ويكو صوبضتي عرور لوايو عرور محل أو دبات لقارسيو waxaas ku soo badatay marka meesha casharka maanta aan ka badanayna waxa waaye mar kastaba inaad maxaa la dhahaa adoo ilaahay tawakkalaysid xirigaaga inaad xirto caruurtaadna banaan kusii deynin mar kastaba indhahaaga hortooda ee caruurtaada tagnaadaan maxaa la dhahaa qisadan waxay dhacday 1980kii wadankaas Kuwait ka dhacday 80kii wixii dhacay anaga hadda wadankeena haysataa sagaashaniyadii ku bilaabatay ilaa 2000 wixii ka dambeeyay ilaa hadda way socotaa mar kastabana waa aragnaa caruur dhibaato soo gaartay oo maxaa la dhahaa laga sheekeynayo amba newska lagu soo darsaday marka war yaan igu daalinin qisadeena ku sii soconayna 80kii ka dhacday saa horena ugu soo sheegay maxaa la dhahaa Kuwait saddex nin baa waxay isku soo barteen gaarshirada dhexdeeda ee Kuwait mid asalkiisa hore wuxuu ahaa Ciraaq laakiin wadankaas Kuwait ku noolaa 80kii carabta wadamadooda way wada degi jireen wax oo maxaa la dhahaa oo badan ma laga rabin hadda adduunka waa la kala xiray waxa u baahan tahay dhalasho iyo waxaas u baahan tahay iyo iqaamo hadaan wadanka u dhalanin sida Soomaaliya hadaa gobol aadaysa dirtaan oo kale wax lagaaga baahan yahay malaha waa degaysa saas oo kale tahay marka saaxiibayaal saddexda nin oo isku soo barteen gaalshil isku soo barteen ama jeelka isku soo barteen mid Ciraaqi waaye sahorni ku soo sheegay 23 sano jira waxa lagu maxaa la dhahaa waxa lagu xiray markiisa horene dadka faraq xumeynta ku sameeynayo dadka uu faraq xumeyn jiray kan labaadna waxa la dhahaa Khalid asalkiisa hore wuxuu ahaa Sacuudiya asana isku daa oo kale intad waaye asigana wuxuu ahaa dadka inuu afduubo baa loo xiray marka kan ugu weyn oo meesha oo 29 sano jiro ugu tuuga xun oo wax kastana og Kuwaiti ahaa 29 sano jira tuug waaye nin aad iyo aad u xun waaye wax aana ka suurtoobinna malaha askarta marka wadankan hadda Ingiriiska aan joogno dadka tuugada ah markii ay maxaa la dhahaa ee tuuga ahaayeen mar hore askarta way qorataa way ku shaqaysataa dadkii iyo meelaha wax xun lagu gadaayo iyo waxaasitoda la rabaa inay keenaan xogaa lacag la siinaa koraa laga ilaalsanaa tuugada inay iga soo raadiyaan la rabaa maadaama ay tuug yihiin tuugada ayaga soo keenayaan ayaga soo sheegayaan meelay joogaan waxay sameeyeen dhaqaaqooda marka ninkaanetood Xamiid la dhahaa asina Xamiid oo Kuwaitiga 29 jirka waxa waaye tuug aad u weyn waaye oo gangster weynaade marka ninkaanetood waxa waaye nin oo dawladda ku shaqaysato laakiin markuu wax xoog leh oo sameeyana waa la xiraa marka saddexdooda gaarshil iskugu imaadeen meeshaas isku barteen way wada sheekaysteen qof kasta wixii lagu soo xiriyo waxaas ku wada sheekaysteen meeshii ku saaxiibeen waxa u dhamaatay waqtiyadoodii meesha ku xirnaayeen u dhamaatay way isbalamiyeen kan Xamiid la dhahaayo oo askartan u shaqeeyo tuuga weynaadana wuxuu sameeyay raadigii iyo Khalidkii adreeskooda qaatay asi adreeskiisa muuna dhibin magac kale uu leeyahay magaciisa runta Kaadima la dhahaa laakiin naaneystiisa Xamiid la dhahaa naaneystiisa u sheegay adreeskoodana wuu qaatay adigii way soo baxeen dadkan banaanka iskugu imaadeen way isbalansadeen shimbirkiisoo la buwaa maqli jiray dad tuuga waaye marka way israasadeen way isku yimaadeen waa la wada sheekaystay intee ka bilawnaa waxaan ka bilaabeynaa afduub waxaan soo afduubeynaa maxaa la dhahaa gabdhahan soo afduubanaynaa kadibna waxaan geysanaynaa meel dheer aan kusoo xiranaynaa waxaan rabnaa ka samaysanaynaa qof weynna ma rabno ilmo yaraan rabnaa sababta ah dadku waa weyn la dagaalamayaan way qaylinayaan waana la arkaa qof ilmo yar ah aan afduubeynaa hayee dhehen intee ka bilawnaa waxaana geysiinay dheheen meesha xaafad magaceeda sheegeen oo Kuwait ku taalo meeshaasna geey dad ajnabi badan degan maadaama dadkaas ajnabi badan degan yihiin gaadhano ilmaha ku ciyaaraan ma haystaan marka ilmaha waxaa la sameeyaa markay ciyaarayaan dabaqyada ay kasoo degayaan meesha hoose iskaga ciyaarayaan waalidna mala joogo marka meeshaasitood baa soo taargad gareynaynaa nakaxeeya way israaxeen gaariya soo qaateen oo taargada maxaasitood raadi ku qoran yahay wiilka magaciisa ku qoran yahay meesha imaadeen kii weynaa 29 jirka ahaa baa wuxuu yiri anaa degaayo oo ilmo soo qabanayo
marka wuxuu yidhi gaariga hal qof soo dego maraayid inuu nadiifinayo waxaas iska dhigo dadka siina ugu yaabin gaarigan meesha taagan. Okay dhehen halaa soo dega gaariga nadiifis u gaalay asina waa baxay 2 jir uu kusoo dhuftay. wuxuu helay gabar yar oo maxaa la dhahaa oo Bangladesh ah oo banaanku ciyaarayso arkay ilmo yar ah. gabadhiyo soo dafay afku kasoo duubay gaarigii Burundi ahaa wuu kusoo riteen way israaceen waxay la galeen guri ku yaalo meel banaan ah bay gabadhi geysteen. gabadhi wax alaale waxay rabeen ku sameeyeen. gabadhii naf ma ku jirtaa mase waa ka baxda iyadoo dhowr maalmood ay meesha ku haysteen ee gabadhi sidii rabaan ka yeelaayeen. ugu dambeyntii gabadhiyo sakaraad ah bay inay kusoo xireen guriga meel kaga soo xireen gacmaha iyo lugaha kasoo xireen 2 maalmood raashin la-aan meel ku xiran tahay iyadoo sakaraada way kasoo tageen. waxay dhaheen ta way dhib rabtaa soo bax mid kale raadsanayna. meeshii haddana kusoo noqdeen waqtigaas 80kii sida haddoo kale maaha kaamira iyo meel kasta wax joogaan iyo social media wax lagu raadinaya iyo ma jirin. waqtigaas waxaa jiray raadiyo iyo newspaper waxaas in lagu soo qoro dadka journaalka in lagu soo qoro. marka wax dhan waxay u socdeen wax si tartiib u socon jireen. haddeertaan 4 saac gudaheeda haddii arrin dhacdo rabbi subxaana watacaala hadduu fududeeyo waa lasoo qabanaya qofkii ama qabaar u dhawaa la helaya dadkana way isgargaarsiinaya qof kasta baa maqlaysaa. laakiin markii hore waxay ahaan jireen wax lasoo daabaco adi waqtiga qaadan jirtay. marka alaa ita xaal way soo baxeen isla meeshii imaadeen. horaa waxaa maqli jiray ninka tuuga ah wuxuu ku kor wareegaa ama qofka tuuga wuxuu kor wareegaa meeshuu wax ku haleeyey ama meeshuu qof ku dilay wuu ku kor wareegaya maanta dhan. wuxuu fiirinaa meesha maxaa ka jiro ma lagu ogaaday wuu fiirinaa maanta dhan. marka saaxiibayaal meeshii imaadeen haddana gabar 19 jir ah oo libnaaniyad ah oo libnaan ah asalkeeda bay isku dayeen inay maxaa la dhahaa soo afduubtaan markaan ee gaariga soo saartaan. 19 sano qof jira marka qof xoogan waay way la dagaalantay way qeylisay way carareen. tuugna waa ka cabsi badan yahay ayaga way soo baxeen. haddana way soo laabteen waxay heleen haddana 12 jir Kuwaiti ah. way u yeereen inay u timaadeen rabeen kadibna ay gaariga ku ritaan. markay u yeereen gabadhii teeda meenin qorneen way carartay way qeylisay iyadoo cararayso oo qeylinaysa aabe u tagto waxay tiri aabe rag gaari saaran oo meeshaas taagan baa ii wada yeereen oo maxaa la dhahaa oo xunxun. adagii wuxuu yiri ma sharaysan gurigaaga soo xaro banaankan ha aadin. gabadhiis meesha ku xariistay arrinta ma sii faafininba. meeshaas waxay ahayd sare dhaadheer oo dadka shaqaalaha wadanka wada degan oo ajnabiyaasha wadanka oo dhan wax alaale waxay rabaa ka shaqeeyaane meelay degnaayeen ahayd. marka gabadhan yar oo waxay heleen haddeertaan 9 sano jirtaa. masaari waaye gabadhaasay heleen way la soo carareen. meeshii gabadhii hore ay ku xirneyd 2 maalmood ku xirneyd raashin la-aan ku ahayd bay gabadhi keeneen. gabadhii afraad waay markaa 2 waa ka fakadeen 19 jir libnaan ah 12 jir Kuwait ah way ka fakadeen. maxaa soo haray 9 jir oo masaari ah meeshii keensadeen. markay imaadeen marka gabadhii ay meesha ku xireen 2 maalmood kuleelkii gaajadii iyadoo sakaraad ka tageen way dhimatay. gabadhii way qaadeen meel iska dhigeen tii yareed ay soo kaxaysteen bay haddana sidii gabadhii hore ay ku sameeyeen oo kale ay ku sameeyeen. kaaray qabaan dad inkaar qabo waa. marka alaa ii taxaal gabadhii markay saas ku sameeyeen oo iyadoo nafteeda tacbaan ah oo sakaraaday dhowr maalmood meesha markay ku haysteen iyo tii hore oo dhimatay baa wuxuu yiri kii 29 jirka ah Xamiid la dhahayo tuuga weynaa oo askartan la shaqeyn jiray baa wuxuu yiri iska baxa afkiina yaa war laga maqlin anaa gabdhahan kaxeenaayo oo soo tuuraayo. tii goobaad oo Bangladeshka way dhimatay. tii dambe oo xanaan yareedne oo 9 jirka ahayd iyadoo nafla caarig ah uu inuu qabtay uu ceejiyo neefta ku celiyay ayadana wuu dilay. raggan wuxuu yiri iska taga baxa gaariga asaa qaatay. marka wuxuu la tagay meel oo wax lagu gubo oo gaariyada lagu tuuro la tagay oo banaanka ah. hal gabar meesha ku duugay oo ku gubay wuu gubay. tii kalena wuu qaaday meel kale uu geeyey wuu soo gubay. marka wuxuu sameeyey gaariga geedkiisii oo magaciisa ku qornaa raadi magaalada meel kaga tuuray meel agagaarkeeda ah wuuna soo baxay ninkii. markuu shaqada soo dhameeyey oo gabdhihii soo qaarijiyey labadaba soo gubay raadi magaciisa tabeelaha gaariga ku qornayn oo meesha kusoo tuuray lacala haddii hadhooti la qabto si oonan asiga meesha u galin.
kii xamiidka ahaa oo gabdhaha gubay gurigiisu asan aaday wiilashana gurigooday aadeen 29 jirka xamiidkii la dhahayay oo gabdhahan soo gubay wuxuu leeyahay xaas iyo gabar yar marka labadoodii isbitaal rabaa inuu kaxeeyo maanta isbitaalkii oo geeyay markay danada soo dhamaysteen soo noqodkoodii wuxuu soo maray jidkii oo qashinka yaalay oo xaafadii luuq ahayd jidkaas soo maray markaas wuxuu yiri xaaskiisa musqula u baahanahay meeshaana maxal dhahaa musqulka galaya wuu dagay markuu dagay asoo cararaya indhihiis taagayo yimid alla waxaan arkay maxaa aragtay waxaan arkay ilmo yaroo dhinteen oo gubteen meeshaan yaalaan qofaa dhintay markaas wuxuu yiri booliiskana u sheegna waayay tir ana guriga gey adiga booliisku tag u sheeg mayo yiri aniga iga shakinaya kaligay laakiin daa ila socod waa li aaminaya soo baxa u sheegnay booliiska adiga waa la soo baxay booliiskii soo noqdeen booliiskii u sheegeen waxaa loogu yeeray ninka asi mas'uulka ah oo faylkiisa haayo markii wax loo diraayo ama dad soo qaba la dhahayo ama dad soo jaajuus la dhahayo ninkii faylkiisa haayay ay isla xiriiri jireen kiyaa soo raacay markuu soo raacay meeshuu keenay wuxuu yiri maxaa ku aragtay meeshaan ana wuxuu yiri isbitaalaan ka imid oo xaaskayga gabadheeda geeyay markaan soo laabanayna musqulaan u baahanay anoo musqul meeshaan u galaayo baan waxaan arkay qofkan meesha ku gubtay saasaan aniga idin soo gaarsiiyay warkaan ninka askariga ahaa waayaa wuxuu yiri macquul miya 2 maalin ilaa 3 maalin kala soo mooday telefoon oo qabsaday codkiisoo bedelay qof kale iska dhigay wuxuu yiri waxaan arkay qof la gubay baa meedkeeda waxaan ku arkay meeshaas iyo meeshaas asagana wuxuu iska dhigay codkiisoo bedelay magaciisana ma sheegin waxa uu kaliya rabo waxa waaye in la arko meedkaas si meesha loogu qaado oo loo duugo oo tuugada ay u raadsadaan oo asigana meesha ugu baxo marka si aan loo garanin hadalka moona sii badinin telefoonka ku damay kadib wuxuu sameeyay in uu maxaa la dhahaa uu baxo danihiisa qabsado marka askartii way yaabeen meedkii la tagay waa la soo qaaday gabadhi kala raadinayay waaye waa la soo qaaday idane dadkoodii waxa la raadiyay inay dugtaan marka waxa leeyahay ninkaanitod oo qofkii horena dilay qofkan dambana dilay gabadhan yar kalena dilay ninkaanitod waa nin og tilaabo kasta aan qaadeyno hadda wuxuu raadinayaa asiga sidoo lugtiisa ugu bixi lahaa programkan labadii wiil raadi iyo kii kala qaali la dhahayay sidoo qoorta ugu geliyo oo asigana ka baxsado sheekadan oo rabaa marka markii horeba adreeskooda wuu hayay kii sameeynan haynin asigana xataa maalintii gabadha ugu dambeysay oo masaarida ahayd 9 jirka ahayd markuu gubayay wuxuu soo tuuray taargada gaariga wiilkii raadi la dhahayay buu meesha kaga soo tagay si kas ah ugu soo tagay si uu asiga lugta ugu baxo marka meeshaan game u ciyaaraya ninkaanitod wuxuu rabaa wax kasta oo dhaco inay asila soo ataageen magaciisa ma hayaan adeereskiisa ma hayaan wax cadaan lagu ma hayo marka wuxuu ilaalinaa bis asiga iyo booliiska inay isku meel imaadaan iyo wiilashaas kaas iska ilaalinaa marka booliiska waxay bilaabeen inay sheekada dhan isku soo wada xiraan oo waxa dhan ay fahmaan oo wixii dhan la darsooyaa asigana wuu ku dhex jiraa sheekada dhan wuu la socdaa marka intay wax raadinayeen buu fikrad ku soo dhex tuuro dhaxdooda wuxuu yiri waxaa jiro oo meeshaas xaafad meeshaas degan 2 wiil mid waa Ciraaqi magaciisana waxa la yiraahdaa Raadi midna waa Sacuudi magaciisa waxa la yiraahdaa Khalid labadooda waa 2 maxaa la dhahaa oo aad iyo aad u farahooda ugu yaalo booliiska dhinaciisa waxyaalo badan la sameeyeen marka ayagana la soo fiiray waa adiga ku sheegal dhahay si ku ogaatay inaad 2 qofood magacooda noo keento markaas wuxuu yiri aniga maadaama aan ahaan jiray dadkii hore oo maxaa la dhahaa oo magaalada wax xun ka sameyn jiray oo hadda aan ka tooba keenay wili waxaan aqaanaa dadka suuq ku jiro iyo waxay haleeyaan waxaas informationkaas dhan waa haya sida ogtihiinba sababtoo ah ayagoo u shaqeeyaa oo rufiyaanimada xaafadda wuxuu ugu soo qaadaa qofkii tuug ah iyo qofkii la arki waayo maadaama ayaga ay ka baqeyneen ninkan oo tuug ahaan jiray saas oo magaalada ugu soo keenaa warkooda marka wuxuu yiri saas daraadeed okay waa la aaminay wiilashii la doonay asiga muuna raacin askar loo diray wiilashii waa la keenay markii la keenay waxa la yiri jaaliyaal waxa nagu cad arinta ina qabateen oo gabadhaas ay dhibaato gaarsiin 2 gabdhood kale intane maxaa la ay ka fakadeen mid Libnaani ah iyo mid kale intood oo Kuwaiti ah tii Bangladesh tii Masrigane oo aad disheen warka waa nagu cad yahay marka tiyaana liihaya waa la soo xirey
maya meesha galeen waa iska qaracbeen maya kaligeen ma ahayn waana la joogay annaga waxaanayto qofaa noo soo alifay ninka noo soo alifay maxaa la dhahaa qoorta waxaa noo geliyey annaga kanay ahayd aday dooday meesha ka galeen ninka magaciisa keena la dhahay ninka waxay u dhiibeen magac la dhahaye xamiid ninkaanaytodne xamiid waa naanees lagumaba yaqaanaba ayaga la yaqaanaan adreeskiisana ma hayaan magaciisa runtana ma hayaan magaciisa runta waxaa la yidhahdaa kaadimaa la dhahaa marka saaxiibayaalow baxar markay saas u galeen ninkii hadda marka waxaa la dhahay ninkan xamiid aa sheegaysiin baan raadinaynaa marka xamiid kasoo kashif maayo waxaa waye ilaahay doomar ceebtaada qariyo kunjara qariyo maalinaa banaanka lasoo dhigaa xamiidkan wuxuu kashifmaa marka maalin maalmaha ka mid ah baa booliiskii magaalada lagu sii wada daayey sababto ah sheekada way soo badatay gabar horaa dhimatay tukalaa ku xigtay waa la gubay maxaa la dhahaa kuwa kale waa kasoo fakadeen ayagoo la afduubi rabo magaalada marka waa qasan tahay kuweydna saa ogtihiin meel weyn ma ahaba marka waxaa dhacday magaalada dhan booliiska lagu daadiyey ninkii la dhahayey xamiid la dhahayey tuugii weynaa oo dadkan dhan projectiga u keenay baa asagoo meel maraayo wuxuu arkay booliis qeylinayo waxaa waaye qofka markuu oo takana qabo waxaa waaye markasta wuu baqayaa wuu baqay ninkaanaytood buuqaanaytood ka laabtay dad meel iska fadhiyaan wadamadanaytood waxay qabaan carabta raggooda meelay gooniya iska fadhiistaan marka ninkaanaytood ayaga kama tirsano bikaas gurugurubay meel u warda fadhiistaan dadkaanaytood ayaga ma ka tirsano mana yaqaanaan laakiinse naflacaarigu ahaayo booliiskaanu ka baqay maxaa jiro isdhahayno sidaasoo meesha ugu soo laabtay marka waxay soo wada fiiriyeen markuu soo galay ninkaan la aqoonin iska soo galay meesha waxaa la soo fadhiisay qaxwo cab wuu fadhiistay qaxwo loo shubay meesha iska fadhiistay marka laba nin meesha fadhiyeen oo ragga meesha fadhiyeen kamid ahaa baa hoos jug iska siiyeen waxay dhaheen maxay tahay ninkaan iska soo galay meesha markay saa u fiiriyeen ninkii waaba nin aanan deganeyn oo xasilneyn marka waxay fiiriyeen situationkiisu yahay qaxwadiisu iska cabay tartiib booliiska intuu qeylada ka dhammaanayay meeshuu fadhiyay booliiska markay gaariyayaashii booliiska codkooda oo waayey ninkii waa istaagay bobsiis waa isbobsiiyey wuxuu dhahay haye macsalaama saasuu u baxay marka labadii nin waxay dhaheen saan caadi ma aha maalmahan wixii la raadinaya raggii la raadinayay oo caruurta xadeen waxaa laga yaabaa inuu kamid yahay nakaxey dhaheen soo bax xaafadda booliiska xaafaddan tagaynay labadiina issoo raaceen oo ninka ka shakiyeen booliiska xaafadda imaadeen markay saas booliis kusoo galeen waxay arkayaan ninkii ay rabeen inay report gareeyaan oo qol meeshaas ah kula jiro mudiirka oo booliiska kula jiro dirishada maraayadeeda ka arkeen bes waxay tageen meeshareeda tageen oo obigay tageen waxay dhaheen waxaan rabnaa inaan la hadalno ninka meesha xukumo waayaha la dhahay kiina wuu arkay markuu arkay wuu soo baxay albaabkii qab wuu baxay jaf wuu ka baxay albaabkii waxaa soo haray labadii nin gudaha la geeyey waa lala hadlay soo dhawaada maxaan qabanaa odayaasha xaafadda ay imaadeen haye soo dhawaada maxaa cabaysiin maxaan qabtaa waxbanaa noo qabanine nin yahow waxaan rabnaa inaan report gareyno ninkii caruurta la la-yahay maalmahanitood ninkay ku maqan yihiin war magaciis war intuu jooga adreeskiis ma haysiin sawirkiis ma haysiin waxaa la isdeji arrinta saas maaha ninkii hadda albaabka ka baxay ninkaas waay oo see ku dhihi kartiin dheh ninkaas inuu yahay see ku hubtiin waxay dhaheen ninkaanitood booliiska xaafadda markii maanta isqabsatay inuu meesha noogu soo galay anagoon is aqoonin meesha fadhiistay meeshana mana kusii xasilin qofna maanu la hadlin wuxuu sameeyey markuu booliiska meesha dhaafay ee xaafadda degtani horoo kasoo cararay marka shakiyaana galay anagana dadka xaafadaan nahay waxaanitood inaan wax kasii ogaanaan rabnaa oo caruurteenna ee ammaan noo galaan marka ninka hadeertaan hala soo qabto ninkan waxbaa ku maqane adi booliiska loo diray waa baxeen ninkii la soo qabtay waa la keenay waxaa lees hor keena marka labadii wiil raadi khaalid iyo ninkan oo xamiid isku bixiyey laakiin magaciisa oo yahay kaadim waa lees hor keena haye dhaheen soo dhawaahay marka waa kan ninka anaga aan ku sheegayn xamiid ku dheheynin waa ninka projectiga dhan soo suubiyey waa ninkan baxarka ninka nagu riday waa asiga wuxuu bilaabay marka inuu iska waalo booliiska sida loogu shaqeeyo yaqaanaa inuu iska waalo u sheego dadkan laakiin waa laga yeeli waayey warka waa nigu cadyaha dhahay warka dhan way caddeeyeen labadan qofood maadaama oo ogaaday maxaa la dhahaa ninkii raadi la dhahayey in taargada gaarigiisa laga soo helay meesha oo ninkan baxarka guridi rabay oo ogaaday marka wuxuu yiri waxba ma reebanayo warkii dhan sidiisa halhalo farta ugu saaray si kasta wax u dhaceen oo u sheegay meelay ku wada fakadaanay waayeen saddexdooda waa la qabtay waxaa lagu xukumay in maxaa la dhahaa oo la dili doono meeshii aan lagu qaarajiyay saddexdoodii intaasaa maanta raba inaan nila wadaago
آدي أذا وما سنتين رب سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه نون حريستو رحمدي سواسعنا أنك إذيك درية دين الدرية مسلمين إلهي إنه نون حريستو رحمدي سواسعنا جنة فردوس على هنو وذقيو مرك صاحب بيال انت سأسكوكنا هاي إيد وناكسن مرلبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.